كبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا waa idin salaamaya horta mar kaleeto halkaan isugu nimid waxaan rabaa inaan asxaabta aan idinla wadaago kolley fikirkeyga hadduu gaaban yahana waa qaldanta waa dhihi kartaan laakiin anigu waxa aan baryahan dhan aan ka fikirayay oo mar walba igu soo noqnoqonaya fikirka ah Soomaali haddaan nahay xagee kasoo jeednaa waxaa ii soo baxday jawaabta aniga ahaan shaqsiyan ii soo baxday waxay noqotay inaan la aqoon oon meel aan kasoo jeednay iyo meel aan ka nimid faraceeni iyo sirkeeni aan la garanaynin haddaan nahay Soomaali taas marka maxaan uga gol leeyahay oo saas u leeyahay waxaan u leeyahay waa run horta Soomaali oo dhan haddaan maaragtay waxaan nahay hal qabiil oo markaas usii kala baxa qoysas yar oo maaragtay dad isii dhaleen laakiin Soomaali ahaan marka la yiraahdo qabiilka la yiraahdo Soomaali waa hal qabiil oo Soomaali la yiraahdo oo hadda dhulkeena ku nool marka waana la baray oo waxaad dhihi kartaa waalidiinteenu waxay noo sheegeen oo na bareen maasha Allah in abtirskii oo kaleeto maanta marka abtirsid meel baa galaysaa wuxuu gaarsiinayaa ilaa magac la yaqaano oo qaarkood magac Soomaali ama magac kaleeto kadibna waxaana looga sheekeeyay oo la baray maasha Allah in qabiilkaas markii lagu abtirsado uu galo qabiil kaleeto ama reer kaleeto ama qoys kaleeto waddan kala degan waddanka kale haddii la tago oo lasii eego lasii baaro oo ayaga laftirkooda la weydiiyo qoladaas markaas la sheegtay la weydiiyo waxay ayaga laftirkooda laga yaabaa inay xagee kasoo jeedaan la dhaho inay yiraahdaan meel kale aan kasoo jeednaa oo meel kale ay kusii geyso ay kusii gudbiso marka intii aad waddan kaleeto iyo qolo kaleeto aadan af isla fahmayna dhaqan iyo wax sidaasaba idinka dhexaynin aad sheegan lahayd Soomaali ayaa tahay Soomaali ayaa nahay Soomaali oo dhanna waa hal qabiil farac iyo isri iyo meel kale iska daay dadka kugu sokeeyo kugu xeeran inaad maaragtay oo dhaqan wadaag tihiin oo hadal maxaa la luqad wadaag tihiin oo daris wadaag tihiin inaad maaragtay ayagaas aad xigsato inta aad dhihi lahayd meel kaleeto aan la garanayn faraceedan kasoo jeedna taas macnaheedu waxaan ula jeedaa oo ayadana aan uga gol leeyahay waxa ay tahay haddiiba aan la aqoonin isir iyo farac meel sii fog aanan jirin iyo meel loo saarin karo toona inaan anagu dhexdeena Soomaali haddaan nahay halkaas qabiil aan nahay oo qoysaska yaryar usii kala baxa aanan isfaquuqin oo aanan iskala fogeynin oo aanan dhihin adiga iga sharaf badan iyo maxaa la dhahaa adigu aad dhihin waa kaa laan dheereysanahay iyo waa kaa caqli badanahay iyo waa kaa karti badanahay iyo waa kuwaas waa ka sharaf badannahay iyo kuwan waa ka maaragtay inaan lees dhihin oo maadaama hal qolo aan nahay oo farci meel aan kasoo jeedo anigu waxaa aaminsanahay dadkoo dhan inay maaragtay kasoo wada jeedaan abuurista ilaahay la wada yahay ubadkii aadan iyo xaawo kadibna nin walbaba meeshuu deganaa oo deegaankiisu uu yahay uu ku abtirsado Soomaali baan nahay oo Soomaali iskula hadasha is afgaranaya isku diin ah isku dhaqan ah isku degaan ah marka halkaas qabiil in lagu ekaado oo dadku dhan ay wada sinaadaan oo qofna qofka kaleeto uusan isu arkin inuu ka fiican yahay ama uu ka sharaf badan yahay ama uu maaragtay ka karti badan yahay adiguna hay dhihin aniga maaragtay ka magaciisaysan aniguna aanan ku dhihin oo dadkii aanu nahay hal qabiil oo qolo walba meesha markaas qabiil kasta qoys kastaba meeshu waa qabiil qoys aan usii kala baxno oo yar wax iska hal qabiil aan iska nahay Soomaali haddaan nahay marka maadaama aan sidaa iska nahay inaa maaragtay qoys walbaba meeshuu degan yahay dadka ugu sokeeya ay yihiin dadka ku xeeran dadka deegaankaas la degan dadka kugu sokeeya ay noqdaan ehelkaaga waa dadkii familkaaga sokeeya ugu sokeeya oo dadka maxaa la dhahaa dadka kugu sokeeya ah kadibna dadka xaafadaada kula degan xaafadaada kadib dadka ku xeeran dadka deegaankaas kula degan dadka magaaladaas kula degan dadka kugu sokeeya ay noqdaan dadka gobolkaas kula degan ilaa marka dambe dadka Soomaali meesha ay ku nooshahay oo dhan shanta Soomaaliyeed inta loo yaqaano ee xaalad dadkaaga uu yahay qabiilkaaga
oosan maaragtay qoys iyo dadka aan loo kala faquuqin oo qof cid ka sharaf badan ilaah agtiisa waxa waaye qofka waxaan wada ognahay qofka ugu sharaf badan inuu yahay qofka ugu taqwada badan leh marka qabiilka anigu kolley waxaan aaminsanahay in Soomaali hal qabiil aan nahay qoys li aan kala baxno bis maadaama isirkii faracii meel kaleeto lasii raadin karaana aysan jirin in maaragta dadka kula degan ay yihiin qofka kuugu sokeeya marka deegaan degmo magaalo gobol ilaa maaragtay Soomaali oo dhan markaas aan isku noqono hal qabiil haddii marka fikirkaasi aniga oo inaan farac dambe iyo meel la sii jiray iyo meel loo maaragtay raacaan lahayn aaminsanahay haddii ay qalad tahay kolley waa fikirkayga waxaa maaragtay waad igu diidi kartaa oo igu mucaaradi kartaa waxaad dhihi kartaa bal wixii tala soo jeedina waa sidaas ma ahane maaragtay waa isixi kartaa laakiin anigu sidaas aaminsanahay Soomaali waa hal qabiil waxaan usii kala baxnaa marka qoysas yar waaye marka qoysaskaasna qoyska maaragtay sharaf badan iyo qoys ka fiican inaanu jirin inaad anigu aan kaa qoys fiicnayn qoyskayga iyo qoyskaagu ay isku mid yihiin oo aan wada galno qabiilka la yiraahdo Soomaalida oo asalkiisii farciisa meel loo raaca aysan jirin oo aan nahay dadkaas aan ku ekaano dhulkaas deegaankaas aan degannahay oo deegaankaas Soomaaliyeed haddii marka kulley waa dood aniga fikir ahaan aan qabo sida aniga aan aaminsanahay inaan farac meel dib loo raaci karaa badan uusan jirin haddii marka si fikir ka duwan ay qabtid kulley waa aaminsanahay inay igu raacsan tahay haddii aadan igu raacsanahay ayada laftirkeeda waa ii sheegi kartaa in aan maaragtay hal qoys hal qolo aan nahay oo qoys yar u kala baxa qolana qolo ka sharaf badan ama maaragtay qoys ka sharaf badan oo jirin dadka aan la kala faquuqin oo aan si maaragtay isku siman aan u simannahay nin walbana ninka ugu sokeeya uu ahaado ninka deegaanka la degan iyo cidda kuugu dhow oo maaragtay dadka kaleeto deegaan ahaan degmo ahaan xaafad ahaan degmo ahaan allahu mustacaan gobol ahaan ilaa markaas gobol ahaan waxaan ula jeedaa gobolka Soomaalidu ay degan tahay oo ku noolahay shanta Soomaaliyeed waa gobolka geeska Afrika oo dhan marka dadka kuugu xigo inuu ahaado qofka kuugu dhow markaas aysan ahaanin maaragtay qoys iyo aan loo kala sharaf badnayn dadka dhan ay u siman yihiin haddii aan maaragtay fikirkaas anigu aan qabo ay igu raacsan tahay xataa laftirkeeda igu taageero iisoo sheega waxaad tirahdaa kugu raacsanahay waa runta haddii aan ku qaldanahay ood igu raacsanayn oo fikirkaas mid ka duwan aan qabtidna ayada laftirkeeda iisoo sheega igu mucaarada waxaad tirahdaa waxaas waxba kama jiraan laakiin bal ii sharax sababta aad markaas aad uga soo horjeedid oodan igu raacaynin marka waa ka bax halkaas ay noo joogaysaa insha allah youtube-ka tiktok sidoo kaleeto cabdullaahi kuul igala soco youtube-kan dabaabkan halkaan adiga daawanaysaa marka maasha allah soo dhawaada dhammaantiin waxaan idin leeyahay gacmo furan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka bax